haddii aad fahmin shuruudaha guriga lagu xiro markaad iibsanayso qalad weyn ayaa samayn doontaa qaladkaas oo noqon doona qalad aad ka soo kabsan doonin waxaan ku sharxayaa 7 shuruud oo lagu xiro guryaha ayaa jira waxyaalaashani waxa loo yaqaanaa contingency oo ama shuruud guriga ku xiraysa ilaa uu maro guriga inaad iibsanaynin walaal soo dhawo magacaygu waxa la yiraahdaa daahir halkan waxaan kaga hadalnaa real estate investment iyo wax loo yaqaano personal development haddii aad rabto guriga iibsato ama guriga iska sii gado insha Allah waxa ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com haddii aad rabto arrimaha real estate investment ina barato kamid buy and hold subject to wholesaling fix and flip inshallah igu soo boqo website-kayga sahaninvestor.com oo ku bilaabaya waqti badan san kaaga lumin inshallah na soo follow great video noocan soo aragto waan ku bilaabaya so the first one badana dadku dhan wada garanayaan oo contingency-ga lagu xiro guriga waxay waa home inspection gurigan wuxuu ku oggolaanaysaa tan hada shuruud uga dhigto gurigan inaad ogaato ciladaha uu qabo ama waxay ku oggolaanaysaa inaad la heshiin karto inuu ka hagaajiyo ciladahaasi hadduu ka hagaajinin inuu lacagtaasi ku siinayo si kirida adigu saad u hagaajiso waxa kale ku oggolaanaysaa inaad guriga cancel karto haddii uu wixii lagu hagaajiyay wixii aad ka codsatay lagu hagaajin waayo number 2 waa idan waa garanaysan badana waa appraisal contingency waaye waa tan labaad gurigan haddii qiimaha suuqa uu ka joogo uu noqon waayo waxay ku oggolaanaysaa in aad ka codsato qiimahaasi inay hoos soo dhigaan badana ninka waa is part of negotiation kamid tahay ninka real estate agent-gaada inuu hawshan qabtay loo baahan yahay inspection-ka taasaga inuu ka caawiyo la rabaa so gurigaasi hadduu qiimaha suuqa ka joogin then waxay noqonaysaa in meel laxad ku imaataan so mararka qaar waxay noqonaysaa haddii guriga aad ka heshay let's say guriga waa ka heshay guriga waa guri fiican laakiin guriga wuxuu suuqa kaga joogaa 380 ilaa kaadi waxa ku iibsanaysaa 400,000 so hadda waxay noqonaysaa heshiiska waa inaan meel laxas kugu imaataan 10,000 hadduu ka tago 10,000 laakiin real estate agent-gaada waxaan ka filaya inuu noqdo inuu sameeyo projection gurigan for the last 3 years inuu dib u laabto qiimihiisa intuu kor u kacay taas wuxuu oggolaanaysaa gurigan wuxuu ogaan karaa mustaqbalka wuxuu noqon doona qiimihiisa intuu kor u kacay ogaan karaa at least 5 years hoos dib u laabtaa aan ogaado gurigan like projectionkiisi every other year intuu qiimaha kor u kacay taas waxay ku oggolaanaysaa gurigan mustaqbalka inaad ka kaaftoomi karto lacala haddii aad guriga ku iibsato 10,000 oo dheeraad ah oo suuq ka joogin alright waan ka soconaya number 3 wax loo yaqaan financial contingency waaye this one waa bangiga aadaysa waa shuruud bay kamid tahay oo shuruudaas oo haddii lacagta mortgage-ka lagu ogolaan waayo in guriga aad ka bixi karto maadaama guriga aad u qalbi waasay waxaa jirta lacag loo yaqaan honest money lacagtaas oo lacag carbuun ah dhigaysa ayaa jirta lacagtaas oo si ay kaaga go'naan 3,500 bay noqon doontaa guriga whatever uu yahay haddii guriga 400,000 yahay 1% ku dhufanaysa that's like 4,000 noqonaysa so lacagtaasi si ay kaaga go'naan ku soo laabato tan kale wax loo yaqaan title contingency ayaa jira oo ah title-ka aad guriga iibsanayso oo kula wareegayso oo qofka la wareegayo ma title lagu dhagan yahay waay inuu noqdaal rabaa clear title oo ah gurigan wax nadiif ah hadhow mustaqbalka wax legal issue uu kaaga imaanay mustaqbalka kaaga imaanay haddii uu noqon waayo taasi uu clear uu noqon waayo this title oo badana title even title insurance ay ku siinayaan way sameeyaan kuwa title company-ga uu noqon waayo then waa cancel kartaa that's part of the contingency uu kamid yahay wax loo yaqaan jira home sale contingency ah basically hadaa maanta guriga aad ku nooshahay waxa shuruud kaga dhigaysaa gurigan in la aad iibiso inaad guriga kale aad iibsan karin kuwa qaar way aqbalaan as long way arkayaan this contingency or like home sale contingency ay arkayaan way muuqanaysaa gurigan marka aan offer uu ku draft garanayo there's another formal raaciya jirta oo ku raacinayo ninka real estate agent kula shaqeynayo oo ku draft garanayo hadduu sida shaqada loogu talagalay uu qabto basically warqadaas raacinaya wax hadalka iimaanaya hadday aqbalaan way ogyihiin gurigan ilaa aad ka iibinayso inuu suuq oo aad guriga kala iibsan karin shuruud ah so taas noqonaysaa so there's another one loo yaqaan jira kick out clause tan badana waxaa isticmaalaa ninka sellerka ama contingency waayadana oo ninka sellerka ah haddii gurigaada iska sii gadayso kale oo aad gurigaada inaa still sii market garan karto suuq kugu jiri karo aanan aqbali karto aan offer laakiin shuruud waxay tahay gurigaada inaad sii gadayso shuruuda dad kale ayaa aqbali karta tan waxay ku oggolaanaysaa gurigaada maadaama shuruud uga dhigtay gurigaada haddii aad an offer accept garayso mid ka fiican aad hesho basically you'll use this clause isticmaalaysaa kick out clause kana isticmaalaysaa qofkii ku siiyay 450 ku siiyay gurigaadana waxaad ku rabtay like 480 490 ba waxaad ku raadinaysaa ku heshay qofka kale basically asagoo waxa dhibaato ku imaan this hadaa haysato this clause da ku darto wax dhibo sharci ahaan legal kaaga imaan ma laha waana accept garaysan offer ya muhiim waa aad u fiican tan special da guriga iska sii gadayso bay ku anfacaysaa there's another one loo yaqaano number 7 waa rent back contingency wax la jira this rent back contingency-gan wuxuu ku oggolaanaysaa basically ninka guriga iska leh haddaad maanta guri ku nooshahay gurigaada inaad 2 bilood intaad howlahaada wax isku aadsanayso aad ka sii karaysan karto qofka guriga iibsanayo waana heshiis waaye this one mararka qaar way ka diidayaan haddii ka diidaan
It's just unfortunate. Way xun tahay. Laakiin haddii uu marka koowaad markii warqadda lagu draft garanayo uu ku daro ninka real estate agentigaada guriga ku iibinayo uu ku daro already or even probably description uu ku daro, I don't think so in dhibaato ka imaanayso usually. Wax walba just like you have to clarify first. Wax walba inaad cadeysa u baahan yihiin. Like marka MLS the multiple listing service aad gelinayso inaad cadeysa waa wixii intentionkaada muxuu yahay. haddii aad cadeyso then wax dhib ka imaanaya. So toddobadaasi ayaa badanaa la isticmaala way fara badan yihiin insha Allah another video waan soo samayn doona qayb kale aan ka hadli doono laakiin mostly toddobadan ayaa badanaa 80% isticmaalaan. Ninka real estate agent ee kula shaqeynaya waxaan aaminsanahay inuu arrimahan ku samayn doono haddii ku sameynin waxaad u qalantaa real estate agent. I don't consider myself real estate agent. I'm real estate professional ahay. I do both real estate investment and real estate agent labada waa ahay. So that's why I isticmaalo the term real estate professional. Insha Allah haddaa rabto inaad guri iibsato ama gurigeedna iska sii gado ana waxaan ka soo qabtaa website-kayga sahanrealty.com. haddii aad rabto real estate investment inaad barato ay kamid tahay buy and hold, subject to, wholesale, fix and flip insha Allah igu soo booqo website-kayga sahaninvestor.com. insha Allah marka la soo qabta. Assalamu alaikum.